iyadoo maanta in ka badan 100 arday ay ka qalin jabiyeen jaamacadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Towdheer isla markaasina ay ka qalin jabiyeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ayaa waxa qalin jabinta jaamacaddaasi ka soo qayb galin madaxda sarsare ee xukuumadda Soomaaliland ee ugu sareeyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wasiiradiisa waxaana arrintaasi ka hadlay isla markaasina si weyn uga biyadiiday qalin jabintoodaasi aanay kala soo qayb galin madaxda sarsare ee xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacaddaasi maanta waa maalin aad igu qaaliyo waxaan u mahadnaqayaa family-gaygii muddada dheer 4 sannadood igu soo tabcayay gaar ahaan walaalkii Farxaan Siciid Ogle qaranku 3 jaamacadood waaweyn buu lahaa waa jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Burco madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan runtii dadaalkii iyo tacabka gelinay annagoo jaamacadda Burco 7 habeen ugu dib jiray ayada maanta meel uu na dhigay madaxweyne ma hayno u cadanaga maartayna garan mayno Camuudna waad ka qayb gashay Hargeysana waad ka qayb gashay waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidiintay family-ga iyo dhammaan maamulka jaamacadda dareenkayguna aad iyo aad buu kacsan yahay maanta waan faraxsanahay alxamdulillaah rabbil aalamiin inta markaan ka soo gudbo maanta waxa farxadda nagala qayb qaatay waalidiintayo iyo bulshada gobolka Togdheer iyo asxaabteeda laakiin waxaan aad u tabaynay meesha ka maqan madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo ahayd maanta inuu yimaado xalfadan magaalada Burco oo ahayd xalfadii ugu horeysay la qabtay intuu madaxweynaha aad iyo aad baan uga xunnahay inuu isaga daayo uu quuri waayo inuu keeno hal wasiir madaxweyne intii qalin jabin dhacaysay dhammaan waad ka qayb gashay laakiin jaamacadda Burco ma iman aad iman weydana hatta cala laqal wasiir noomaad soo dirin taa waxaan u aragnaa madaxweyne intii hatta doorashada dhacday ma iman inaad halkan gobolka Togdheer iyo dhalinyaradooda iyo maanta qalin jabinta dhacaysa inta waanad shucuurteeda iyo farxadeeda midnaanad ahmiyad siinaynin madaxweynaha hal baan leeyahay maanta qalin jabinta jaamacadda Burco sababtu inuu waayo horta runtii waa mid la isweydiinayo dhammaan dadka dhan ay isweydiinayaan maxay ahayd ma garan karno sababta uu maxay ahayd jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Camuud uga qayb galay taayadana ugu soo qayb gali waaya haatan hal wasiirna noo soo diri waayo agaasima noo soo diray kullay jaamacadaha wadanka ku yaala dawli iyo private ba waa xaq bay u leeyihiin inay madaxweynaha inay kala qayb qaadato farxadda laakiin samaanaan helin farxadda ay heleen jaamacadaha kale Camuud iyo wixii Hargeysa xaga ka xiga galbeed jeclaan lahayn annagu dhaafnaya ardayda annaga nagu xiga inay bal farxadda si ay ugu dhameystiranto ay helaan Saciid Abdi Xasan oo ka baxay Faculty of Community oo ka mid ah ardayda hadda qalin jabinaysa aad baan u faraxsanahay laakiin waxaan aad uga xumahay iyadoo aanay nagala soo qayb galin dawladdii oo sida wasiiradii oo kale oo madaxweynihii aanu ka qayb galin oo markaad eegto jaamacadihii kale sida Camuud ama kuwii dawladda uu ka qayb galay teedii aanu ka soo qayb galin halka waxa kaaga muuqanaysa runtii madaxweynuhu waxa weeyaan wax doortay waa shicib marka waxa weeyaan inaan cadaalad jirin oo waxa weeyaan ardayda aan loo sinayn halkan graduation jaamacadda Burco waxaanu ka rajaynaynay inuu yimaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo oo ka qayb galay labadii jaamacadood ee hore naga horeeyay annagoo sugaynay maanta madaxweynihii inuu yimaado ma aanan arkin waxaad xigta madaxdii kale ee ku dhadhaweyd ama madaxweyne ku-xigeenkii ama wasiiradiina loo soo dirin waxaana loo soo diray agaasimihii guud maantana waxa weeye taasi waxay cadaynaysaa in xukuumaddu meelo gaara ay awoodda saarayso Ibrahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco.